sheekadii kabatalaha waa sheeko ka warramaysa kabatalo faqiir ahaa haddana xariif ahaa oo ku noolaa tuulo yar. maalin maalmaha ka mid ah ayuu ka soo rawaxay suuqa isaga oo dameerkiisii wata lacagna sita. isaga oo dariiqa ku soo jira ayaa waxa ka soo horbaxay nin tuug ah. kabatalihii ayaa naxay waxaanu ka baqay inuu lacagta ka qaato. kadib waxa maskaxdiisa ku soo dhacday fikrad cajiib ah. lacagtii uu sitay ayuu qoorta u geliyay dameerkii. tuugii ayaa markii uu lacag ka waayay ayuu isku dayay inuu dameerka ka qaato. laakiin kabatalihii wuu bariyay waxaanu ka codsaday inaanu dameerka ka qaadin. waxa uu baryaba dameerkii ayaa ciyay kadibna lacagtii ayaa ka soo dhacday. tuugii ayaa ka yaabay dameerka waxaanuu mooday inuu dameerku lacag samaynayo marka uu ciyo. tuugii waxa uu ka codsaday kabatalihii inuu dameerka ka iibiyo kadibna uu ka iibiyey. kabatalihii waxa uu tegay gurigiisii isaga oo lacag badan sita. tuugiina gurigiisii ayuu tegay isaga oo dameer wata. habeenkii oo dhan ayuu sugayay inuu lacag sameeyo dameerku markasta oo uu ciyo. laakiin bilaa faa'iido dameerku mid lacag samaynaya muu hayn. aroortii markii ay gaadhay tuugii ayaa xanaaqay wuxuuna damcay inuu lacagtiisii soo ceshado dameerkana u celiyo kabatalaha. kabataluhu waxa uu sii ogaa in uu tuugu iman doono gurigiisa si uu lacagtiisa u soo ceshado. kadib islaantiisii ayuu ku yidhi waxaan tegayaa beerta. haddii cidi kaa weydiiso waxaad ii soo dirtaa eyga xaafadda. tuugii ayaa imid gurigii wuxuuna weydiiyey islaantii xagga uu joogo ninkeedii. islaantii ayaa u yeedhay eygii waxayna ku tiri orod oo u yeedh kabatalihii. eygii ayaa tegay beertii in yar kadibna waxaaba la arkay kabatalihii iyo eygii oo soo wada socda. tuugii waxa uu la yaabay sida uu eygu wax u fahmayo. kadib waxa uu damcay inuu ka iibsado eyga waanuu ka iibsaday. maalintii dambe tuugii ayaa doonay inuu suuqa tago waxaanuu reerkiisa ku sii ballamiyey haddii cidi kiin weydiiso ii soo dira eyga. wax yar kadib tuugga saaxiibadii ayaa gurigii imid waxayna weydiiyeen mee odaygii reerku. sidii uu horeba ugu sheegay reerkiisa waxa loo soo diray eygii si uu ugu yeedho laakiin eygii waxa uu toos u tegay xaafaddii kabatalaha. ninkii tuugga ahaa ayaa ku soo noqday gurigiisii waxaanu xaqiiqsaday in la khiyaameeyey mar labaad oo aanuu eygu ahayn sidii uu moodayey.